بسم الله الرحمن الرحيم أدينا سي ودنا هالكي عشرة كني أنا برتي مرة كسي ودنا وحين مرة مركان باينر ما دو مركا ورا سر ريجستر بالله هي بيج كانوا كني مركا باينر ساين اب بالله هذا قال كمركا فيلين ده فيليس كانت بعين مركا من individual مثل كمبني ما تهاي individual وجوان كشمر كوبان قال كم واحد ما عقد قلني ساه لكن تشيميل بس كسر قباني ما عقد قلني ساه مركا كم صحيح waxaan isticmaalayaa tusaale waxaan oranayaa Ahmed Samed kadibna kan last name ka gelinaysa magacaaga sax sida ID-ga ugu qoran baad u gashanaysaa taas oo fiican basti waan cilada kaga iimaanay marka halkan waxaad gashanaysaa waa email-kaaga email-ka nimka sameysana waxa weeye waxaan isticmaalayaa kii Soomaali inter linears laba tuubaha @gmail.com marka waa inaad isticmaashaa maxay gmail-ka aad u leedahay marka kaan doo isticmaalaysaa mar labaad geli buu halkan waxaad gelinaysaa date of birth inta marka dabayso kadib waxaad leedahay next oo marka doonaysan sign ku samayso binary account ka furata marka way in halkan wadanka joogto wax dhibaato ma leh binary Soomaaliya uu aqbala marka Soomaaliya aad ka dhiganaysaa u deeysanaysaa marka address-ka waxaad leedahay New Hargeysa ayaan u deynay dhibaato ma adleesaan tuu option laban ka boodaya toonka waxa la yahay Hargeysa halkan zip code-ka 252 ba iska geli halkan lambar buu gaar raba marka numberkaaga Soomaaliya dinsa kadib waxaad leeyahay next si fudud marka wadanku waa muhiim Soomaaliya ka dhiganaysa waa inaad waxay wuxuu kaaga xiran yahay hadhow ID-gu ku weydiinaya marka Soomaaliya noqonaya way talabaad saddexaad buu geenaya markii contacti markaad gelisay security details halkan gmail-kaaga iyo password-kaaga soo geli password dib u geli buu yiri password u sameeyay baa la yiri masaxay halkaas password baan u sameeyay marka isla password-ka mar labaad ku celinaya ويالكن security question hadhow hadii la calaad password-ka ilowdo waxyaaba su'aalo lagu weydiiyo hadhow ka jawaabto marka adigu uun garanaysa marka security question baa dhada security baa lagu adkeynaya mid uma qoranaysa what is the name of your first teacher macallinkaaga ugu horeeyay magaciisa muxuu ahaa waxa oranaysaa jaamac badhe haday ku taala marka hadhow marka jaamac hadii lagu weydiiyo su'aasha password-taad garan weydiiyo su'aasha lagu weydiiyo inaad si wacan u garataa wadankan waxa la yahay Soomaaliya student country ID-ga yaa bixiyay أنا ID-ga isticmaal doonta ama passport-ka saddexda mid un baa laga rabaa aniga hore u sheegnay passport driving license ama national ID waa inaad mid un haysataa kaad haysataa markaan isticmaalaysaa marka kaad haysato isticmaalaysaa national ID baan ugu doortay tusaale waxaan gelinayaa marka national ID-gaygan gelinayaa waaye selection-kayga ku xirantay marka mar baad u kaad haysataa isticmaalaysaa national ID waxa isticmaal karaysaa كدولة فدرال كبحث Soomaaliya marka joogto passport-ka la soo ismaan karaysa waxa ismaasa kuwa hatta waxa isticmaal karaysa kuwa dawladaha bixiyaan ama maamuladu bixiyaan sida Puntland oo kala hadaad haysto ka Somaliland waa isticmaal karaysa hadaad kan kale national ID-ga passport-ka la soo haysataan waa isticmaal karaysa hadaad passport haysto caadiya passport-na marka isticmaalaysa ka dinto driving license haysto isticmaalaysa oo numberka uma gelinaysa marka san ID numberkiisa marka halkan wax dhibaato ma adkeeniya freelancers kan dadka online ku shaqeeya ugu tala galay marka imika national ID baan idhi waxaan gelinayaa marka ID-ga
way marka galiye kadib halkan code baa inoogu qoran hoose code kaasaan gelinaya marka isagana R8 kadib waxaan leeyahay next markaan buuxiyo kadib maxaan leeyahay next way almost done badana waan dhameeyay halkan stepka u dambeeya ama talaabada u dambeeysa waxaan u baahanayaa ama isticmaalayaa waxaad u baahan tahay bank account ama local bank account aad leedahay kow waa inaad bangi ku leedahay waddanka aad joogto localkaaga mar hadduu kan kaa caawinayo bangigaaga ma support garayaan Google Ads ama YouTube lacagtan ka sameeyo bangigayga caadiga aan ka isticmaalayo localka wadamada waddankayga bangiyada ku yaala ima isticmaalaya marka waxaan u baahanayaa inaan Binance ka furto kayga bangiga isku xir ka laba qodob baan lacagta Binance la baxaya inaan bangi ku soo dirsado tusaale dahabshiil lagu soo wareejiyo ama Dar es Salaam Bank ama Premier Bank ama Salama Bank kuwa la midka ah dhamaantood in lagu soo wareejiyo lacagta ama inaan Mastercard ka dalbado marka Mastercard baan u dalbanaa waa Mastercard fudud laakiin marka la sameynayo waa laga rabaa wuxuu ka rabaa bank account inaad leedahay bangi account inaad leedahay marka ayuu ka rabaa way halkan bank name baan leeyahay waxaan la su'aala bankigaad ku leedahay isticmaal ayaan gelinaysaa halkan anigu waxaan gelinayaa su'aala Premier Bank waan gelinayaa way halkan account name waxaan leeyahay magacaygaan gelinayaa halkan waxaan gelinayaa maxay account numberkigaan gelinayaa marka way markaan u gelina kadib bank aad ka ku leedahay account local ka waddanka ku yaala Premier Bank baan geliyay magacaad gelinaysaa kadib waxaad gelinaysaa account numberkaaga marka account numberkaad ku leedahay marka bankigaas ku siinaya iyo SWIFT code waxa la yiraahdo international money lacagta transferka moneyga ama transactionska waddan to waddan ama country to country la soo mariyo SWIFT baa la yiraahdaa ama bank code baa la yiraahdaa bank identification code marka Premier Bank kiisu waa kan banki kastaba wuxuu leeyahay marka SWIFT code u gaara account numberna uu siinayaan marka labadaas aad gelinaysaa marka waa number 1 recommended ahaan furataa Premier Bank account ka furataa sida recommended ka isaga wacan bangiyada kale oo ka furan kartaa marba meesha joogto ku yaala marka sida Dar es Salaam Bank iyo kuwa lamka Dahabshiil Bank dhamaantood ka furan kartaa kadibna agree baad leedahay marka bangigayga iyo bangiga waxaan isku xidhayaa Binance si marka lacagta la igu soo diri karayo bangiga la igu soo wareejin karayo ama baan optionka labaad inaan isticmaalo karayo card Mastercard ay soo diraan Binance marka optionkaas fiican markasta ay nidhi Binance kan isticmaalana hadii la yiraahdo ay la gisa kan marka oran baad ku diiwaan gashanaysaa marka mid baan leeyahay marka intaas ay ku dhantahay markaas talaabooyinka saas igu sameeyay marka congratulations bud Binance kaaga waa la sameeyay application waa complete review in process marka waxa review baa socda wala soo check garnaa you will receive an email notification within next several business days on your application has confirmed waxaad helaysaa wuu email baad helaysaa 3 shaqo gudahood 3 shaqo ah maalmaha ana ku jiray sabti ahadi ayaad ku heli doontaa email in file waa aqbalay iyo in kala soo aqbalay marka labadaas kala ogaan doonto insha Allah receive payment waad heli doontaa marka dambe way ka Binance kana saas inuu sameeyay marka waxaan sameyn karnaa login baan ku sameyn karnaa username ka password ku sameeyay waan sign in ku sameyn karaya marka ay balaanayna gudihiisa marka sign in baan ku dhufanaya halkan uu keenaya marka halkan waxaan gelinayaa marka emailkii aan imka sameystay iyo Binance-kii aan sameystay baan gashanayaa marka oo ahaa maxay Somali Entrepreneurs halkan password kan gashanayaa kadibna sign in baan leeyahay
waayo halkan uu keenaya haddaba haddaynu si wacan u fiirsano Pioneer haddaba aynu u eegno waa sidan dashboardkaaga markaad soo gasho sign in soo tiraado sidaan kugu soo qoriyaa marka imka features ba maalkan soo taxmaya marka la soo verify garay 3 shay kadib uu ku qabanaya marka customer ID baad leedahay halkan waa magacaagii lacagta dollar waxa kugu jira marka waa tan sidoo kale transactionska receiving payment marka waxyaabo baan ka maqan halkan oo imika insha Allah ku soo markuu soo verify garay 3 shay ku soo galaya marka hadii alla hadayna islaagna hadaba halkan transactionska wax transaction kama jiraan marka halkan USD lacagta dollarka euro iyo pound saddexda lacag buu support buu ku yahay marka waxay ka dhigantay adigoo Mareykan baan ku leh Ingiriis baan ku leh Europe baan ku leh marka saddexdaba uu ku aqbalaya marka lacag saddexda lacagod waa receive garan karaysa kaliya looma isticmaalayo Google waxa uu isticmaal karaysaa paymentyada kale su'aale lacagahooda marka kugu soo dhacaya Europe hadda wax ku iibinayso kala online marka e-commerce uu isticmaalaso euro hadii laga gajiso euradu ku qabanaya akoonkaaga hadda uu ku bedelaya adiga dollar ku soo bedelay marka pound sidoo kale way marka saddex bangiba uu siinaya marka saddex akoon bangiba waa ku siinaya marka insha Allah ta'ala halkaas aynu ku joojinayna Pioneer-ku waa aad muhiim u yahay online solutionska ama online payment solutionskana waa number 1 buu yahay entrepreneurska iyo dadka online ku shaqeysta insha Allah ta'ala intaynu ku kulmi doona 10 lamida waxaan kaga tegaynaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh